waxaan joognaa jawhar bariiska ka baxa jawhar waa ognahay sanadkan bariis badanaa ka baxay sanadkii horena bariis badanaa ka baxay waxaan rabnaa inaan gobolada kale u iibgeyno si ay u sii waarto oo ay bariiskeenu u gadmo oo aan isaga dhaafno midkaan la soo huuriyey oo nalooga keenay dalalka shisheeye waxaan rabnaa intaasna aga faa'iideysanaa inta fadhiso in ay wasaaradda iska soo xaadiriyaan oo iska soo diiwaangeliyaan sida annaga iyo ayaga ay wada shaqeyn buuxda naga dhexmari lahayd waa caalamka dadka ugu shaqay lahayd intaasna waxaa iga tahay iidana ogeysiis gobolkan hadda shabeellada dhexe wuxuu ka mid ahaa gobollada wax soo saarka ugu badan buu ka mid ahaa markii jubbooyinka iyo la fiiriyo iyo shabeellada hoose saddexdaas meelood baa ugu wax soo saar badnayd xagga uriyada marka la yidhaahdo waxaan ognahay marka burburkii dadka soo gaaro dhammaan saameeyey ayaa beerihiina saameeyey waxay ila tahay intii reer jawhar oo dadka hore ay waa yaqaaneen ama reer jawhar baan halkaan baan beeralay ka ahay shirkadda hufan hadda aad maqlayseenna halkaan bay shaqada ka bilowday waana ay wadaysaa haddii aad eegno bariisley baan xoololeyna waa taariikh aad u fiican oo runtii waqtigii ugu fiicnaa oo soo maraa baa jawhar ku noolaa waa bandhig ganacsi oo markii u horreysay lagu soo bandhigay magaalada jawhar caasimadda hirshabeelle waxaana sanadkii hore lagu bandhigay magaalada beeldhabo ee xarunta kumeelgaarka koonfur galbeed jawhar oo ah magaalo wax soo saarka caan ku ah ayaa maanta lagu soo bandhigay iyadoona ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin aad u fara badan maxamed ibraahim jimcaale home cable TV jawhar